السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام يا دمان ولا Soomaaliyeed halkan iga daawanaya meel walba aad joogtaan iyo si walba markaad in maqlaysanba muuqaalkan waxaan doonayaa maanta bal inaan ku falanqeeyo analysis xogaa yar qoto dheerna markaa aan ka sameeyo bal dhacdooyinkii ka dhacay SSC waxyaalaha ay ummadda in badan oo ka mid ah aysan ogeyn iyo qatar badan oo runtii ay ka badbaaday SSC iyo waliba Puntland baan doonayaa maanta inaan bal halkan aan ku lafaguro aan isleeyahay maanta xilli ka horeysay oo arintan saa loo qodqodi karay ma aysan jirinin maadaama dadka iyagu ay cadiif iska yihiin marka qaar kood xataa adigoo waxa aad sheegayso ay yihiin arrimo aad hubto ummadana badbaadin lahayd haddii sida loo sheegayo marka loo qaadan lahaa ayaa haddana cadiifadii baa ka tira badan dadka intii marka la ii arki lahaa si kale mudooyinka la soo dhaafay hoos baan u yara dhigay inta khilaafaadka gudaha SSC iyo Puntland ba ay jiraan waxaan aaminsanahay dadkaas ehelkay ah walaalahay ah inta waxa la yiraahdaa ayagu ay khilaafaadkooda dhinac u ridayaan iyo hadal aan leeyahay usan markaa dhibaatana u geysanin anigana ay si qaldan aysan ii arkinin danta kaliyoon ka leeyahay SSC iyo Puntland ba waa in ayagu baraaraan weeye dan shakhsi ah iyo magac iyo views midna kuma goobaynin taa waa halka waxaan rabaa inaan dhowr arrimood ka bilaabo waxaan marka hore ka bilaabayaa waxaan arkayaa dad isku dayaya inay damiirka nool walaalihii ku shahiiday halgankii xoogga badnaa ee ka dhacay aagaga magaalada Laascaanood inay markaasi caayaan waxaan oran lahaa wariyaan la caayin damiirka dadka kuwii dhintay iyo kuwa nool walaalihii harti ahaa meesha ku shahiiday yaan la siyaasadayn wiilashii mudug salkeeda ka yimaaday Laascaanood u soo gurmaday halka ku dhamaaday qabriyaduna ay ka qodan yihiin wixii ay goobayeen arrimo siyaasadeed ma ahayn 17 xildhibaan maanta la isku haystana ma aysan ahayn dadkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda ay u soo gurmadeen ayadaasina difaaciyeen wiilashii kale bari salkeeda ka soo gurmaday yimaaday ayaguna halka ku dhintay kuna xoolo waayay ayaguna wixii ay goobayeen aragti Puntland iyo siyaasad maysan ahayn cirdigooda iyo sharaftooda iyo walaalahood bay u soo gurmadeen kuwii nugaal ka tagay ka mid ka dadkii ugu horeeyay halka ku dhintay ayaguna wixii ay goobayeen siyaasadda ma ahayn Saciid Cabdullaahi Dirna ma dirinin qadiyad Puntland ma aysan difaacin dadkoodii difaaciyeen cirdigooda difaaciyeen sharaftooda difaaciyeen iigood bay difaaciyeen meesha ay ku dhimanayeenna dhulkoodii buu ahaa waxaan arkayaa dad maanta markaa isku dhex qasaya damiirkii noolaa walaalihii harti meesha u gurmaday kuna dhintay dad oranaya siyaasad ka dhex goobaya siyaasad ku dhex qasaya meesha siyaasad kama jiro wixii ay ka bilaabatay halgankii SSC-na 17 xildhibaan iyo Puntland miyaa lagu biirayaa mise laguma biirayo ma laga baxaya iyo ma laga baxaya midna miiska ma ol ninkii maanta marka halka u celiyaa waan isku dayay inuu caayo damiirkii ummadda Soomaaliyeed halkaan aan ka gurmanaynay halkaan aan ka qaylinay halkaan aan ka ducaynaynay halkaan aan contribution ka sameeynay 17 xildhibaan iyo siyaasadda maana goobaynin maxaan goobaynay inay xoroobaan gabdhihii iyo wiilashii dhagaxa tuurayay jamaahiirta baan doonina inay ayagu masiirkooda leeyihiin baan goobaynay inay ayagu tashadaan baan la goobayay cid siyaasad ka dhex goobaysa meesha ma jiro maantana waxa go'aanka laga soo saaray waa wiilashii iyo gabdhihii rabitaankooda ayaan maanta miiska saaray rabitaankooda marka yaan la afduubi yaan la siyaasadayn yaan dusha laga saaray Puntland dad xil goobaya dusha ka saaray Puntland dadka degan waa dad sharaf leh way waa dad waxa ay bixinayaan aan dan ka lahayn way waa dad dhiig badan way waa dad walaalahood u gurmaday way markaysaan sawirka meesha ka muuqda wiilka gacanta la hayo walaalkiis uu hayo uu gadka ka soo saarayo inuu gadka ka soo saara dan kama goobayo banaanka markuu u soo bixiyo walaalkiis walaal maxaad rabtaa buu leey ma raacaysaa halkaaga joogaysaa hadduu dhoo halkaygan joogaya walaalkii uu ka tagaya maalinka dambeeto walaalkii u baahdo ayuu iimaanaya nimanka harti waa sida ma jeerteen iyo warsangeli iyo dishishe iyo cid walba halka timaaday waxay u timaadeen ma ahayn xildhibaano iyo siyaasad iyo isku bir iyo kala bir waxa meesha ma ol wixii ay xaq u lahaayeen bay guteen
dadkii kale daarood ee Soomaaliyeed ee gurmadeen wixii xaq u lahaayeen bay sameeyeen wax alla wixii ay SSC ku tashadaan baana kulligan ku rabnaa intaasana farxadino ah dadka meelaha ka qaylinaya waxa wax ka dhex goobayo adeerayaal siyaasadda iyo dhiigga kala saar waxay Puntland iyo SSC ay noqon karayaan laba dawladood iska badaa laba maamul oo kala madax banaan oo adduunka laga aqoonsan yahay noqonayaan ayagoo wali ay walaalnimadoodii iyo gurmadkoodii iyo gargaarkoodii ay guulisla garab taagan wiilashii meesha yimaadeen qaarna hadda joogan qaarna dhintayna mushaarna ma soo doonan haddana mushaar ma qaataan joogitaanka ay ku joogaanna mushaar kuma joogaan no abeen mada cirdigooda yaan lagu cayaari mada aqligooda yaan lagu cayaari bis taa waa inta waxaan rabaa tusaale yar inaan ku kabo dawladda dhexe ee Soomaaliya ama dawladda kacaanka dhiraahde markii Djibouti loo gurmanayay oo ciidamadii Soomaaliyeed ee qaranka ay Djibouti u gurmanayeen oo ay raadinayeen Djibouti inay xorowdo siyaasad baa laga dhex goobaya Soomaaliya nagu soo biirta la goobaya Djibouti anaga noo timaada la goobaya meel lama goobaynin dadka Soomaaliyeed walaalaha dhulka Soomaaliyeed baa la doonayay in la xoreeyo maalinkii la xoreeyay maxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan ma dawlad gooni aan noqonaan doonaynaa bay yiraahdeen miyaa la culaadiye maya lama culaadin ciidankii xoreeyay miyaa la soo celiye maya lama soo celin meeshii bay qaarna ku dhinteen qaarna ku ritaay gareen cid soo laabatay ma jirto ilaa Djibouti cagaheeda ay ka istaagtana dawladda Soomaaliyeed waxay ku kabaysay budget waxa lagu bixinaya dhaqaalo ciidankii tigir dhaqaale lagu bixinayay dhaqaale kale sabradan Djibouti wala siiray maalmo yar ka hor bay la soo hadasho hooyo Soomaaliyeed oo qaraabo dhow aan nahay ba Djibouti la soo hadasho waxa geebay ka timaada nimankii ciidanka hay halka ku baabay carruurtii ee dhalay mid kamid ah way waan maamo weyn carruusho arkaysa oo aynu qaraabanahay ilaa maanta waa ku dhaxmilman Djibouti bay noqdeen hatta nooma soo noqon carruurtoodii waa ehelkaygi way adeerkii baa dhalay arkaysan qadiyada dhiigga marka siyaasadda way ka xeel dheertaa wayna ka weynta reer Puntland iyo shacabka degan dawladna ma dirinin cidna ma dirinin ayaga isdiray dhiigoodii baa diray qadiyadoodii baa dirtay maantana qadiyadoodii bay ku joogan haday rabaan ciidanka meesha joogan SSC noqon karayaan inay xataa Puntland u laabtaan haday rabaan xataa ma baxana ka soo bax kuwa ku haya shame on you man leh taa inta san kale waxaan rabaa inaan idin sheego saddex aragtiyadood oo siyaasi ah oo dhibaato adag runtii keeni lahayd qaar ka mid ah hadii la qaadan lahaa ayaa lagu soo dhaxtuuray Puntland iyo meesha loo yaqaan SSC maalinka ugu dambeysay oo ka hadlay waxaan iri SSC na kala qaybin baa lagu wadaa Puntland na kala qaybin baa lagu wadaa dad baa caayayay dad baa si kale arkayay laakiin maanta qayb badan oo ka mid ah inay soo jeedaan baan qiyaasaya dhagartii xamar laga soo maleeyay muddo badan baan ka qayliyay oo dhagartii xamar laga soo maleeyay iska jira xasan ma taqaanaan baan muddo badan ku iri nimanka SSC maanta waxaan garanayaa marka ama aan isleeyahay waxba oga bilaabna arrinta saddex qadiyadood oo miskala soo saara oo maxay ahayd mid ugu horeysa waxay ahayd in 17 xildhibaan oo hore dib loo soo celiyo waa aragti siyaasi ah oo dad khaas ay wataan oo aan sharaxi doono midna waxay ahayd in 17 cusub la keeno bay ahayd waa aragti kale oo siyaasadeed midda saddexaadna inaan midna la keenin bay ahayd qodobkan dambe baa ahaa qodobkii jamaahirta iyo dadkii SSC rabay inay xoroobaan nambarkooda ugu badan qodobkan dambe qabay qodobka ugu horeeya ee 17kii hore inay meesha sii joogaan arrinta Muqdisho laga soo xawlay musharaxiin xamar laga soo diray ayaa arrintaasi soo sameeyay connection dad reer SSC ah baa xataa arrinta ku jiray ay ogyihiin mar rabaan qodqodo ayagoo iyaga aqoon badan yihiin markaysaan musharax reer Puntland la doonayay in lagu soo saaro Siciid Dani baa lagu weerarayay Puntland in lagu qabsada la doonayay Siciid Dani uu ka warqaba maalinkii uu hadlayay Siciid Dani oo walaawan tanaasulay waxyaalihii uu duray ayay ka mid ahayd uu yiri hadalkii ka soo yeeray garaadadii la sacaanood extensionka ka soo waariday balkaasna wuu sheegay raggaana waa isla haayeen taa waa halka arrinta labaad ee ayaduna la yaab kale waxay ahayd 17 cusub in la keeno musharaxiin badan oo reer Puntland oo aan rabinin magacyadooda aan sheegay maadaama kiiskaas uu xirmay ayaa arrintaas ay qaar ka watay ayaguna niman musharaxiin oo xil doonayeen bay ahayn kuwa dhowr nin oo kala duwan baan 17kaas doonaysay inay kala qaybsadaan sidaan xogaa lagu kalsooyay aan ku hayo arrinta ugu dambaysa yaan waxba la keenin oo aynu saa ku kala joogno oo la maamul aan kala ahano waa aragtidii jamaahirtu ay wadatay waana aragtidii guuleysatay oo ay garaadada arrintii
ay ka baqeen baan oran karaa waa la qasbay baan oran karaa garaadada qaybtii wadatay 17 cusub iyo qaybtii wadatay 17kii horeba inta waa la qasbay waxaan maanta u sheegayaa shacabka reer SSC masiirkiina gacanta u gelinina garaad dambe masiirkiina adinka iska leh banaanka istaaga wixii aad fahmaysaan marna dhah dunida waxaa la tixgeliyaa waa aragtida shacabka la tixgeliyaa adduunka meel garaad ka talaya ma jirto maamulka meesha ka dhisan haduusan ku filnayn aniga firdhiyo la yiraahdo haduusan talada maamulka ku filnayn iska wareejiyo xilka nin ku filan oo aragtida shacabka ku shaqeeya ba isin looga baahan looma baahana nin isimo u afdubnaada uma baahana SSC bilis ka daayo umada ciyaarta jamaahirtan waxa leeyahay ilma adeerayaal oo soo jeeda oo indhaha kala haya oo masiirkiina ciidan adinka ahaynaysa yaan gacanta loo gelin haddaad saa ku guulaysataan Soomaali inteeda kale idinka ku dayanayna markaysan garaadada aragtidii aan ka rabay way ka hoos dhaceen laakiin ma raba inaan kala qodqodo kulligood taa waa halka saddexaas aragtidood ayaan sheegay labada hore midkood u dhici lahaa Puntland bay saameyn lahayd haddii aragtidii 17kii hore hala soo celiyo la oran lahaa musharaxiin baa diidi lahaa u arka in xamar looga soo duulay u arka in lagu shubanayo oo siciidan uu ka wakayaa diidi lahaa haddii la oran lahaa kuwa cusub baa la soo xil lahaana kuwii kala diidi lahaa arrintaanu directly waxay u affect garan lahayd Puntland 17kan si walba lagu keenaba Puntland way saameyn lahayd garaad jaamac oo ka hadlay oo arrintaasi aan ogahay inuu xoogaal u yahay marbu sheegay uu yiri dhibaatada aynu ka dayna walaalaheen yaana la aadi dhibaatadeena cid walbana way arkaysaa inay halkaasi ay u laaban lahayd niman garow fadhiya qaarna xabar ka yimid qaarna xilal doonaya ayaa arrinta isku qaban lahaa si walba loo dhigaa laakiin cidna naga aadi mayso garow cadaalad bay u tahay iyo doorasho bilow ah oo aysan cidna aysan afduun bay u tahay ayaguna waxaan ilaahay u rajeynayaa inay doortaan madaxweyne aan cidna soo dirinin oo shacabka iyo aragti fiican ku yimaada dadka walaalaha ee wada degan isku wada shacabka Puntland u shaqeeya shacabka SSC wuxuu tari karo wanaaga taa waa halka si guud marka go'aankii maanta ay soo baxay Puntland dambu u ahaa SSC dambu u ahaa markaysan walaalnimaduna kuma dhamaato arrin siyaasadeed caalamka oo dhan dawlad walaalaha baa ka jira Djibouti iyo Soomaaliya baan sheegay Canada iyo Mareykan baa ka mid ah meel walba dawlado daris isku haya oo isku dad degan yihiin oo isdifaaca oo wax isku darsada oo isjecel oo israba ayaa degan ma arrin cusub ma markaysan iska bada maamul goboleed dawlado caadi ah hadii noqdaan xataa hadii ayagu ay israbaan oo ay wanaag rabaan oo mataqaana barwaaqa ay rabaan inay isjeclaadaan badan ugu jirto isdifaacaan maalinkii dhinacaan ee Puntland difaac uga baahatana SSC waa diyaar maalinkii ay SSC difaac u baahatana Puntland waa diyaar dawladda dhexe ee Soomaaliyana waxay ku wajihi karayaan ciid walba ku soo duusha in siyaasadda dawladda dhexe ee lagu wajahayo Puntland iyo SSC la sameeyo hal siyaasadeed oo xamar mataqaana lagu wajaho oo lagu midaysan yahay in la sameeyo baa loo baahan yahay kali Puntland baa keeni karta SSC madax banaan Puntland baa keeni karta waa inay miiska markay fariisanayso tiraado haddaan SSC la aqoonsanin haba yeelino halba maxaa la yiraahdaa kilkashay ku wateen Puntland Jubbaland ma culusaynayso SSC sida ay Jubbaland ay wateen bay u wadanayaan SSC sasar u wadan karaya garab bayna u noqonayaan difaac bayna u noqonayaan ayagoo laba maamul ah saasana khayr ugu jira dadkana saasa khayr ugu jira arrintaas marka macnaheeda ma in laga abaal dhacay ma Puntland ma doonaynin abaalkii ay gashatay abaal siyaasi ama ahayn laga daayay markii aan laga ciideynin dadka walaalaha abaalkii ay gashteen yaan laga wasakhaynin taariikhdoodii yaan laga fool xumaynin taariikh weyn bay dhigteen reer Puntland taariikhda ay dhigteen siyaasadda kuma goobaynin dhiig walaalnimay u galeen dhiigoodii walaalniman taariikh buu ku qorayaa meel buu u yaalaa rabitaanka walaalahoodna ha ku ixtiraamaan ayaguna walaalahood wixii ay u galeen ha gartaan intaasaan ugu oran lahaa intaasaan kusoo koobayaa dib isaga soo laabanayno khayr iyo guul baan idinku ogaa dib isaga soo laabanaysa in ka taga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala